qaybtii labaad saddex oday iyo sirta nolosha habeenkii xiga boqorka ma sugi karin indhihiisa hurdumaysan arkin wuxuu sugabaa saarasaad markii ay bilowday sheekada qolka boqortooyada xasilooni ayuu qabsaday ganacsadihii markuu arkay makhluuqii weynaa indhihiisa oo dab leh wuu gariiray fadlan sii hal sano ayuu yidhi aan u soo laabto aan qoyskayga u soo sogootiyo makhluuqii wuu yara fikiray dabka indhihiisa weeraaday xanaaqi wuu ka yaraaday hal sano laakiin waad soo noqonee doontaa sax ganacsadihii wuu baxay wuuna soo noqday sanad kadib isagoo diyaar u ah dhimasho laakiin markuu yimid goobtii balanta waxaa yimid oday wato deere cajiib ah odaygii wuxuu yidhi haddii aan kuu sheego sheeko ka yaab badan tan ninkan ma cafinaysaa saddex meel dembigiisa makhluuqii wuu aqbalay sheekada odayga koowaad odaygu wuxuu ku bilaabay deeradan aad aragtid mar waxay ahayd xaaskaygii qolka boqortooyada aamusnaan ayaa gashay waxay iga masiirtay wiil aan addoonka dhalay sixir ayay baratay waxayna wiilkayga ka dhigtay loo yari boqorku indhihiisa way kala baxeen wuu yaabay laakiin gabar sixiroole ah ayaa iga caabisay waxay wiilkayga dib ugu celisay bini'aadin inuu noqdo xaaskaygina deero ayay ka dhigtay makhluuqii wuu yaaway runtii waa sheeko yaab leh waxaan ka dhimay saddex meel la markiiba odaygii labaad ayaa yimid oo wato laba ey oo madow ah isagana wuxuu yidhi labadan ey waa walaalahayga laakiin shaarsaad waxay joojisay sheekadii boqorku isagoo aad u xiise qaba ayuu ku dhawaaqay maxaa ku dhacay walaalaha shaarsaad waxay hoos u dhigtay codkeedii haddii boqorka ii ogolaado habeenka xigta ayaan sheegi doonaa boqorka mar kale ayuu ka noqday go'aankiisa habeenkii labaad wayay badbaaday labada ey madow maxay qarinayaan maxaa ku dhacay walaalaha qaybta saddexaad sirka weyn tii hore ayaa soo bixi doonto la soco qaybta saddexaad sabscribe saar waa inuu dhiirigelin